waxaa iska jira ilaahay xamdigi in haddii haatan oo la sheekaysanayo aniga diskretaratan ama haatan midka kan kaleto aadan yabaal ama dadka degan laygu xantaa ama laysku kaaya xantaa taana abaal weyn baan ku qabaa in laygu keexanto in lakin xijiyo abaal weyn baan ku qabaa walwalkaygu on wuxuu yahay anoo abaalkaa ku qaba baa walwalkaygu on wuxuu yahay inaan noqon waayo ninka dadka kale moodhayo oo aan idin qaban waayo waxa layku kin xijinhayo marka ilaahay waxaan ka baryahayaa inaan noqdaa midkaas laykin xijinhayo oo waxtar gooni ah idin tara aan ilaahay ka rajinhayaa waad ogtiina haatan jamhuuriyadda markaan leeyahay waxaan jeclahay hadal yar oo aska ama halka kan ama meelo kale marmara marka laga hadlay waxaan haddana meesha ka maqlay meesha republica laga yiraahdo horta waa iga sheegasha ama waa iga bariyo waxaan idinka baryahayaa jamhuuriyadda magaceeda inaan la bedino ma anagu ma aan republica wey republicadana jamhuuriyadda la yiraahdaa anu hadda meesha aan hayaa waa on ra'aasada republica weeyaa republicadana waad ogtahay waa ay ka duwan tahay waad ogtihiin raynimo iyo monarkiya iyo waxa kan ama saldaro lagu magacaabo oo waxay uga duwan tahay waa marka hore hawshu way kala qaybsantahay waad ogtihiin oo baarlamaan Soomaali baa jira oo qawaaniinka gooya xukuumad baa jirta Soomaali ah oo hawl dastuurku u dhiibay waliba hawshii ugu weyneed dawladda gacanta ku hayso maamusha oo loo dhisay inay u qunto dhibaatooyinkii ummadda Soomaalida ayna ka qabato waxay ka qaban karto waxaa jira qadaa'iga ama maxkamada oo qudaadda iyo juditooyinka ay ku tirsan yihiin oo loo dhisay inay kala gooyaan ama ay siraan dooda ama banaal ha noqoto ama kiil ha noqoto dadka jamhuuriyadda jooga ka dhacda taydii baa soo hartay taydii waxaa weeyaan hay-a intaa ka duwan oo ra'aasada jamhuuriyadda la yiraahdo oo haatan ninkaa meesha loo dhibaa maantay waa anaa jooga hawshiisu ay tahay wax la soo dhamaystay inuu saxiixa baarlamaanka qawaaniin la geeyaa ama nawaad ha geyso ama xukuumaddu ha geyso waa baarlamaanku wuu ka hadlaa wuu aqbalaa markuu aqbalaa ra-iisul jamhuuriya loo geeyaa waxaa qawaaniinkaa saxiix xukuumaddaa fadhiisata mashaakisha oo waxay ka hadashaa hortaalla qaraaraad bay qaataan qaraaraadkaas ay qaataan bay ra-iisul jamhuuriya u keenaan dekreet ay soo sameeyaan meeshii baarlamaanku leje ka soo sameeyo saxiix ay yidhahdaan taa haatan sidaan galabta sheegayay oo meelo kaleto aan ku sheegay haddii dhaqanka Soomaalida loo fiirso waxay oon uga ekaan kartaa guddoonkeennii markii haatan inta guntu hadday inta isu tagto la tashado oo duqowdu talada ay goyso nin oo madaxa la yiraahdo haye waxa kana la soo gooyay guddooni waa markii hadda la igu roonyaa markii kale tan hadda waxaaba mudda hawshaydu inay tahay ku ducay waxa kana soo dhamaysanay iyadoo bal horta aanan jirin meeshaas aan moodaysan hawshaydu haatan hawluhu ay kala qaybsan yihiin baan saan iri ilaahay idanka waxaa noqon doonaa sidaan galabta iri xukuumadda kii ku karkabeeya oo u geeya oo ku dabagala dhibaatooyinka galabtay iyo caawa iyo haatan caawa markaan leeyahay dabcan waxaa ku jirta xaasidii aada noo dhiibteen oo aada noo soo horumariseen inaan dhaho wixii aad ka qaban kartiin ka qabta hadda waana ujeediin wasaaradiina
qaar baa ila socda qasadkuna wuxuu ahaa inay intay ila socdaan ay maqlaan way ka maqlaan ummadda afkeeda dhibaatooyinkoodu iyo madaariftoodu waxay tahay